ururka suxufiyiinta Somaliland ee Soldier ayaa tababar 3 cisho soconayay wuxuu hotel cadami ee magaalada Cerigaba ugu soo gabagabeeyay wariyeyaasha ka howlgala warbaahinta kala gedisan ee gobolka Sanaag waxaana munaasabadii gabagabada ugu horeynba ka hadlay wakiilka Soldier ee gobolka Sanaag Abdullaahi Xuseen Darwiish iyo agaasimaha ururka Soldier Yaxya Maxamed Xanaf waxaan u mahadcelinayaa wariyeyaasha meelaha dhaadheer ka yimi degmooyinka ka yimi baran ka yimi garada ka yimi ceelaf weyn ka yimi iyadoo in isla ognahay duruufta taalan walba waxa ku gadaamanayno ognahay hawlaha qabyada ah in walba ka soo dhaqayno ognahay haddana waqtigooda u soo horay inay 3 casho yimaadaan Cerigaba ayna kula qaataan waxaan guud ahaan ugu wada mahadcelinayaa 3 casho sida habsamida wanaagsan quruxda leh aynu ugu dhabar adagnay inaynu qaadano waxa inoo soo tabinayeen tababarayaasheena iyo boorka Soldier xubnaha ka socda iyaguna diiwaan gelinta inoo sameeyay mid waan doonayaa inaan cadeeyo Soldier iyo Sanaag waxa isbaray waa Xuuto. That's what I want to talk. Cid ka horeysa Soldier oo isbartay Sanaag iyo Soldier ma jirin tababarada sidii halkan nin ka mid ah ka dhawaajinayay ay Soldier noo sameysay intii ay inoo qabatay ama Hargeysa ay noogu qabatay ama gobolka ay noogu qabatay kan waxa kii inoo ku faa'iidada badnaa ayna ku kala baranay maxaynu nahay iyo maxaynu ka shaqeynaa iyo maxaa dadka u shaqeynaa yihiin iyo maxay tahay shaqadeenu waxaan wariyaasha u soo jeedinayaa wixii aynu baranay aqoonta aynu ka faa'iideysano oo ayna ka muuqato wax qabadkeena wixii maanta ka dambeeya inay noqoto wixii aynu baranay wax aynu ku camal falay Soldier waxaan u soo jeedinayaa dhari nin u dhow laf kala baxa Hargeysa inta u dhow dhariga marka la kariyo lafta kala baxayse noo badiya tababarada si aan u helo aqoon ugu filan aan uga faa'iideysano October 7 baynu maanta joognaa waxa soo gabagabeysay ama soo idlaaday tababar 3 cisho soconayay oo ay wada qabanayeen ururka suxufiyiinta Somaliland ee Soldier iyo hay'adda Finishka ee FAX oo hay'ad caalami ah oo tababarta suxufiyiinta iyo mihnada saxaafadeed anagoo wada shaqeyn leh runtii marka runtii wad mahadsantii maan leenahay muddada aan joognay aad baan ugu faraxsanahay inaan tababarka ka qayb qaadano inuu idin dhamaado hadda tababarkii dhamayseena dardaaranka ugu dambeeya ka tagay waxa weeyaan amal falkii waa wax gamciina ku jira anagu tababarkii waanu dhamaynay waajibkeygana waan ka soo baxnay tababarayaashu waajibkooda ka soo baxeen laakiinse waxaan u baahanahay amal falkiina in muhiimada saxaafadda wax ka bedelo Mawlid Maxamed Shaqal oo kamid ah golaha dhexe ee ururka Soldier ayaa hadallo uu gabagabadii halkaasi ka yiri waxa kamid ahaa macallimiintan ku takhasusay hawsha saxaafadda wali xaashi iyo warda ilaahay iyagana ka tisaaysiiyaan leey inta kadib aqoonta markaad barato inaad ku dhaqantaaba ay wanaagsantii marka waxaan insha Allah rajaynayaa in aqoontii halka ka faa'iideysateen ama aynu kala faa'iideysano aynu ku dabaqno shaqooyinkeena anu waxaan kaliya nadalay laba hawlood daimka inoo qabsamay tababarka waxa kale aad iyo aad ugu faraxsanay inaan maanta qaramayno Soldier ahaan dhowr iyo 3 wariye oo ka tirsan gobolka qaramayn hadda maqasho waxa ciidanka qarankoone waxa weeye registerska deynaan Soldier ahaan annaga faan weyn bay noo taynaan xaqiijino suxufiyiintii naga joogay gobolka waxa weeye ma kala garanaysaa dhow suxufiga aad u doodaysiiyo kaanad u doodeen haddana diiwaankiisa oo ka mid ahayn adiga ugu dambeyntiina waxa wariyeyaasha halka lagu guddoonsiiyay shahaadooyin ka turjumaya tababarkii ay barteen Jaabir Saciid Ducaale Jaabir Bulshaawi San TV Cerigaba